adiga oo ku nool wadamada qurbaha adeeg caafimaad oo la xiriira taranka ma u soo doonan lahayd wadanka Soomaaliya. horumarka dhanka caafimaadka ee la xiriira taranka ayaa muddooyinkii dambe waxaa laga gaaray horumar adduunka oo dhan. hase yeeshee dadka Soomaaliyeed oo lagu yaqaano inay aad uga horeeyaan wadamo badan oo Afrikaana xagga la qabsiga tiknoolajiyadda ayaa ku tallaabsaday horumar ballaaran. xarunta Marwa Fertility Center ayaa ka mid ah xarumaha wadankeena ku yaala ee sida gaarka ah u daweysa arrimaha la xiriira taranka, taas oo soo kordhisay adeega casriga ah ee ilmo beerista IVF. adeegaas oo wadamo badan oo Afrikaan aan weli gaarin. idil waxay ka timid dalka Britain, waxayna ka mid ahayd bukaano kala duwan oo dalka dibadiisa ugu yimid Marwa Fertility Center si ay u helaan adeeg caafimaad oo tayo leh. magacayga waa idil, waxaan ka imaaday wadanka Ingiriiska. isbitaalka Marwa markii hore anoo Ingiriiska joogo waxa ii sheegtay gabar saaxiibtay ah. markaa safarkayga aan soo socdaan weydiiyay isbitaal dumarka u fiican oo facility ah. markaan imidna sidoo kaleeto maama iyadii keentay oo ii sheegtay ayadana in isbitaalka fiican yahay. waliba ka hor anoo isbitaalo badan soo maray, isbitaaladaasna ani ahaan ay qancin waayeen. kadib markaan isbitaalka maranay alxamdulillah waa ku guuleystay. xanuunada iyo wixii aan ka cabanayna waa uga caafimaad alxamdulillah. maantana waa markii saddexaad oo aan imaado. muhiimadda maanta aan u midna waxay tahay in anigana check upkayga saddexaad oo hubina aan samaysto. gabdho saaxiibadeena waan keenay oo ayagana wadamada Holland iyo Ingiriiska iyo wadamo kale ka imaadeen. insha Allah waxaan rajeynayaa asxaabta reer qurbaha wixii facility u baahan, qofkii maxaa la yiraahdaa dhinaca dumarka caafimaad check up iyo waxaas u baahan inaan Marwa imaan doontaan. waa mahadsantihiin. waa bukaan rag ah oo isna ka yimid magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. waxa uu dareemayay xanuuno dhanka xiniyaha. wuxuu soo maray isbitaallo kala duwan oo ku yaala Hargeysa, Garowe iyo Addis Ababa oo ah caasimadda Itoobiya. laakiin ugu dambeyn waxa uu yimid Muqdisho, gaar ahaan xarunta Marwa Fertility Center. halkan waxaan joogaa Marwa Fertility ee magaalada Muqdisho. halkaas aan u soo doontay caafimaad in badan. Addis Ababa iyo Hargeysa iyo Laascaanood iyo Garowe waa tagay. shan sanadood ilaa 6 jeer maan isbitaal la maray. xanuunkaysa lagama gaarin. maanta waxaan ku suganahay Marwa Fertility Center Muqdisho. waxaa laygu sheegay gale labada xiniyoodba qalliin baa laygu sameeyay. alxamdulillah rabbil caalamiin. caafimaad baan dareemayaa. si la mid ah hooyadan waxay soo martay goobo kale oo caafimaad, laakiin ma helin natiijo wanaagsan oo ah waxa ay baadi goobaysay. laakiin ugu dambeyn waxa ay timid xarunta Marwa, waxaana lagu guuleystay in laga soo saaro buro, taas oo muddo badan ay la xanuunsaneed. isbitaalka Marwa maasha Allah soo dhaweyn wanaagsan, alxamdulillah. takhaatiir fiican, kalkaaliyaal fiican, xagga soo dhaweynta maasha Allah. wallahi wax dhibaato aan ku sheegayo maanta ma jirto. waxaan ka sheegana waa dambi. alxamdulillah isbitaalka ay qanciyo oo nafsadeeda qancisay Marwa ahayd maasha Allah. qaliinkayga ka hor iyo hadda maasha Allah. wallahi aad aan ugu farxay markaan arkay buradeeda iga soo baxday. waa ikana waa arki doontiin, waa inuu tusaaya indhihiinaad ku arkaysiin. buro aad u weyn ay ahayd. bukaankan ragga ah waxa uu isna ka yimid gobolka Bari ee Puntland. waxa uu ka cabanayay mid ka mid ah cudurrada ku dhaca xiniyaha. soo dhaweyn wanaagsan kadib waxaa lagu sameeyay qalliin fudud oo u suurtageliyay inuu dib u helo caafimaadkiisa. xanuunayay inta dambe xanuunaysay lafaha iyo xanuunay dhabarka xanuunay socodka waa dhibay. barakallahu aad baan fiicanahay. markii hore waa liitay alxamdulillah. markii hadda isbitaalka Marwa la keenay maasha Allah daawooyinkii baan qaatay, qalliinkii baa lagu sameeyay alxamdulillah. dhaqaatiir oo macnaha oo tayo leh oo ku soo dhaweynayo, marba kontroolayo waan helay alxamdulillah. aad baan fiicanahay, caafimaadkayga taam weeye alxamdulillah. maamadan waxay naga soo boqotay magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado. waxay dareemaysay xanuuno iyo dhibaatooyin kale oo dilin iyo dhicisa. si ay u hesho caafimaad waxay tagtay isbitaallo kala duwan oo qaarkood ku yaala magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. aniga horta isbitaallo badan aan soo maray, sida Nairobi, xamartaan qaaraan hataa ka tagay. wallahi isbitaalkan ii soo dhaweeyay. bil dhan aan ku xirnaa hadda daawooyin la isiinayay. isbitaalkan isbitaal la mid weli ma arag. ilaa haddana hawsheedu waa socotaa. dhaqaatiirta, kalkaaliyaasha, dad fiican oo si fiican ku soo dhaweynaya joogo. marka biidnillaahi kariim caafimaadkayga aad u fiican yahay. xalna xoogaa waxaa lagu sameeyay wax la garan waayay oo meel walba ku soo maray yaa laygu sheego, layga sameeyo, layga soo xaaqay.
oo wasaq igu jirto ilmi uga halaabay ahaa alxamdulilah hadda waa fiicana ilaahay baa mahadle xarunta Marwa waxay sidoo kale soo kordhisay adeegyo caafimaad sida adeega bacriminta IUI, adeega Tesa oo ragga lagu soo saaro noolaha shahwada ragga aan lahayn noolahaasi sidoo kalena waxaa ka mid ah adeega casriga ah ee P-Shot.